inay lacagtii ii diri waayeen. Maxay ahayd caqabadaha aad kala kulantay Bedwinner Affiliate? Maxaa ka aaminsanayd lacag samaynta online-ka ka hor intaadan lacag ka samayn? In lacag laga sameeyo online-ka ay gebi ahaanba been tahay. ها وارنتي halkay ahayd meesha ugu horeysay ee aad lacag ka samayso. Assalaamu calaykum, soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa su'aalo dhowr ah aad isoo weydiiseen. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo jawaabnay qaar ka mid ah su'aalihiina. muuqaalkanna waxaan kaga jawaabi doonaa isla qaar ka mid ah su'aalihiina haddii alla weyn uu ka raali noqdo. Su'aasha xigta waxay leedahay sida tan: maxay ahayd caqabadaha aad kala kulantay Bedwinner Affiliate? Runtii Bedwinner Affiliate caqabadihiisa aad bay u yarayd, waayo waxaan wax badan ka soo bartay OneX Partners. caqabadaha Bedwinka kama duwaneen kuwa OneX Partners, sidaas darteed aad bay iigu fududayd. caqabadaha keliya aan kala kulmay waxay ahayd inay lacagtii ii diri waayeen, waxaana na dhehmaray qoraallada aad arkaysa. Su'aasha xigta waxay ahayd: maxaa ka aaminsanayd lacag samaynta online-ka ka hor intaadan lacag ka samayn? Su'aashan waa su'aal u baahan jawaab waafi ah, balse waxaan kaga hadli doonaa sida ay aniga ila ahayd iyo sida aan aaminsanaa. Sanado ka hor waxaan rumaysanaa ama aaminsanaa in lacag laga sameeyo online-ka ay gebi ahaanba been tahay. haa waa runtii sidaas baan aaminsanaa, waayo isku dayo badan aan sameeyey waan ka guuldaraystay inaan xitaa ka sameeyo 10 senti waan awoodi kari waayey. barnaamijyada inta badanna waxay noqdeen kuwa been abuur ah, taas ayaa igu kaliftay inaan sidaa aamino. balse waxaan sameeyey dadaalo dheeri ah iyadoon jirin cid fikrad xitaa kugu taageerta. qof waliba inta uu ku bariisaynayay luuq ayuu kula jiray. su'aasha xigta waxay ahayd: halkay ahayd meesha ugu horeysay ee aad lacag ka samayso? waxay ahayd website lagu magacaabo Inbox Dollars. waxaan ka sameeyey lacag gaaraysa $13. waxaan kula bahay PayPal oo waagaas Soomaaliya ka shaqayn jiray. lacagta PayPal-ka waagaas ama waqtigaas waxaa sarifi jiray oo keliya 2 ama qof oo keliya. waxaana ka mid ahaa wiil la dhihi jiray Yaasir oo aan mar walba u dirsan jiray lacagihii aan ka sameeyo. website-ka labaad ee aan lacag ka sameeyo wuxuu ahaa website lagu dhihi jiray Future Mining oo ahaa website maalgashi ah. wixii intaa ka dambeeyeyna waxaan helay dhiirinaan iyo aaminaad ah in online-ka lacag laga samayn karo. qaybta labaad ee warcelinta weydiimaha intaas ayaan ku soo afmeerayaa. inta muuqaalka mid la mid ah aynu dib ugu kulmi doonno haddii alla weyn uu oggolaado. isma dhaafin.